kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idinkiin caalamka meel walba oo aad ka joogtaan iyo waqti walba oo ay idin tahay oo wacan hadii ay duhur ku tahay duhur wacan hadii ay habeen ku tahay oo aadan soo toosinna waxaan rajeynayaa in nabad qab ku soo toosi doonto halka aad nagala socotaan ama aad naga daawanaysaan waa channelkiina Siriicad ku soo dhawaada mar kale iyo video hor leh waad ku mahadsan tahay la joogaaga ee fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato ama aad soo marto subscribe saar kambalelkana furo si aad mar walba u hesho muuqaaladii ugu dambeeyay aan soo galino videogan hadii aad ka heshay like garee oo si share garee lana wadaag asxaabtaada aad baad ugu mahadsantihiin soo dhawaada waxaan idin hayaa run ahaantii barnaamij aad u xiiso badan anigu wax walba xiiso ila soo yeeshana waxaan jeclahay in aan idin la wadaago waxa ay noqdaan haw badnaadaan wanaag xitaa hadii aan soo arko wax aan soo biyo diidayna waxaan jeclahay in aan wadaagno si aan u wada aragno ama aan wax wixii aan ka dhigi karno ama wixii aan wax ka qaban karnana aan ka qabanna maanta waa farxad iyo rayrayn waxa magaalada Djibouti maalmahan sida aad ka warhayseen ba ka socday doorashooyin run ahaantii doorashooyinkaasna waxa ay kulmiyeen dad badan oo aanan is arkin in badan ama aan is arki lahayn xitaa ayay kulmisay meesha Djibouti waxa ku kulmay oo aan ogeyn marka hore ku sugnaa ama isku raacay labada fanaan ee da'yarta ee maalmahan garbaha is haysta Sharma Boy iyo Maslax Mideeye laakiin waxa kale magaalada sii joogay fanaanka weyn ee Cawaale Aadan oo aad wada taqaanaan qof walba xageena legend ayuu ka yahay hadii uu horay u jiro waa legend waana sababta aan mar walba u jecelahay in mudnaanta fanaankii ka horeeyay fanaan walba uu siiyo si kuwa ka dambeeyaan isna ay u siiyaan mudnaanta uu mudan yahay fanaanka Cawaale Aadan ayaa ku sugnaa may kulmin isaga iyo Maslax Mideeye iyo waxa kulmeen Cawaale aan iraahdo laakiin may kulmin Sharma Boy iyo Cawaale Aadan wayna u suurtagal weeday sababtoo ah maadaama uu yahay fanaan ku cusub ama fanaan hor leh oo aanan magaalada Djibouti marnaba aanan imaanin waxa ka badnayd dadka aad u xiiseynayay ee Soomaalida ee Djiboutiyaanka ee meesha joogay ayaa ka badnayd oo waxa uu waayay jaanisadii caadiga ahaa ama uu waqtiga caadiga ah ku qabsan lahaa sida aan ka warhaynana doorashada iminka way iska soo idlaatay oo waxa guuleystay madaxweynihii Djibouti waxaan u leenahay Ismaaciil Cumar Geele hambalyo waxaan rajaynaynaa in uu sida uu shalay dalka geeyay si ka wanaagsan in uu sii geeyo umadana ay sidaas u fahmaan dawlad la'aan waxa ka fiican dawlad xun oo aad haysatid mar walba waxaan rajaynayaa dadka inay noqdaan kuwa ku sabrayo amaba ilaashanayo inta ay haystaan wax waliba waxa ka wanaagsan in aad nabad ku seexatid nabadna aad ku soo kacdid inta aanan nabad haysanina ilaahay waxaan uga baryeynaa in uu ilaahay dul dhiga nabadda iyo reereynta si Soomaali meel walba ay degan tahay oo ay degan ku tahay ay ugu noolaato farxad iyo reereyn iyo bashbash iyo barwaaqo ma kala badnin waxaan mar walba jecelahay in aan qalbiga ka mideysnaano meel laga mido waxa ugu wanaagsan waa qalbiga hadaba aan mowduuca dib ugu soo laabto waxa dhacday in ay kulmeen Maslax Mideeye sida aan idin sheegay iyo Cawaale Aadan kadib waa la wada hadlay waa la wada sheekaystay waxaan la isku raacay bisha barakeysan ayaa soo horgashay ama soo dhaxgashay waxa loo balansanaa ama la doonayay ama loo wada xaarayay in la qabto show run ahaantii aad loogu raali gelinayo dadka reer Djibouti ee sharafta iyo qiimaha mudan laakiin waxa soo dhaxgashay sida aan ka warhayno ama soo dhaxgali karto bisha Ramadaan laakiin bacda Eid ama maalinta Eid sida aan ka warhayno maxay tahay waxa lagu balansan yahay oo ay ku balansan yihiin fanaaniinta saddexda ah oo kale Maslax Mideeye Sharma Boy iyo Cawaale Aadan waxa ay ku mideysan yihiin ama ay wada sugayaan ama daawaha ay saaran doonaan heeso ama show aad u xiiso badan oo aan rajeynayo in uu gali doono record waliba abid aan la ilaabi doonin waxaana jeclahay mar walba aan jeclahay in ay dadka helaan ama ay sameeyaan arin run ahaantii fanaan walba fanaanku ka dambeeya kaga si mucjiso badnaado si jiilka dambe ee jecel fanka ay iyagana ay noqdaan kuwa ay ku daydaan waxaana jirto fanaaniintan run ahaantii waa fanaaniin aad looga xiiseynayo laba kamid waa dhalinyaro waqtigooda ay hadda ay ku jiraan
cawaale aadanna sida aad ka warhaysaan waa nin run ahaantii saaxada fanka aad looga qiimeeyo oo ay dadka aad u jecel yihiin markii aad cawaale aadan maqasho qof waliba xasuus gaar ah iyo heesa aad moodo in ay isaga ku socdaan ayuu qaadi jiray saddexdaani fanaan way balansan yihiin markii ay helaan maxaad malaysanaysaa showgana sidoo noqon doona iskoor maxay ah ayaad malaysanaysaa in uu dhigi doono intaba waa jawaabte aan idin jeclahay in aan idinka sugo oo aan rajeenayo in aad isi doontaan jawaab aad u xiiso badan oo anna aan ku qanci doono idinna aad ku qanci doontaan oo aanan turxaan lahayn takaleeto oo meesha taala ayaa waxay tahay waxa uu la kulmay Sharma Boy inta ay u wareejinayso magaalada sidii u wareejinayso waxa uu la kulmay majaajilista Rashid aad wada taqaanaan oo run ahaantii qofkii arkaaba oo aad u jecel yahay amaba inta aan ka warhaynaba aad u gilgili jiray isna xagga majaajilada waa nin keligii ah oo isku filan sida aan dhabta ah waa nin isku filan isagana isku soo wada doob hadii ay habeenkaasi dhacdo xitaa inuu ka soo mid noqdo Rashid waxa ay noqon doontaa habeen taariikh weyn u gali doono Soomaalida idilkeed meel walba ay joogan sidaas ayaan rajaynayaa kulankoodii bar kulankii sida ay u kulmeen iyo inta yariista waxa dhaxmaray bal daawasho يا الحمر واكدا اللي ساقط رشيد نور ساقط بيدين قلنا عطوتي هذا كرا والله ما سيدي سيدي كرا يا مان سيدي رشيد نور شعب كذلك يا مصلحه وريقه كله مليا كليلا soo aragteen aad ay isula faraxsanaayeen annana aad ayaan u faraxsanahay maadaama aad maanta moodayso dadka in ay aad isugu sii dhawaanayaan xagga qalbiga xagga dadnimada iyo xagga Soomaalinimada maanta aad ay dadka isugu dhawaanayaan waxaana mar walba rajeenayaa tilaabadii ka dambeysay in ay noqon doonto mid taariikh qurux badan oo sii gasho ha noqoto fanaaniinteena ha noqoto youtuberada ha noqoto dadka kale caadiga ah siyaasiyiinta dhammaan waxaan rajeenayaa tilaabo walba oo aan qaadi doono in ay noqoto tilaabo ka qurux badan tii aan shal qaadeen si nolosheenana ay u sii qurux badnaato hiigsi ayaan leenahay dad ayaan adduunyada la dul saaranahay dad ayaan wax la wadaageynaa marka dadka aan wax la wadaageyno waxba inama dhaamaan hadda maanta European-ka aad arkaysaan Mareykanka dadka ku nool waxa aad arkaysaan dalka waxay ku dhiseen hagar la'aan iyo qof waliba in uu qofka kaleete oo macnaheedu aad oo u xiis oo asiga aaminsan yahay inuu dalka ka xigo qof walba wuxuu aaminsan yahay qofkan kale inuu dalka ka xigo kan dalka burburinaya inuu dalka isaga ka xigo marka taas ayaa waxa ay keentay dalkan aan maanta u haqal taageeno in ay dad sidaas ay dhistaan annagana waxaan rajeynayaa in Ilaahay naga dhax saaro qabiilka qoronka iyo qashinka intaba oo aan noqono dad dalkooda jecel nin walbaba oo Soomaaliyeed dalka uu dawladda ku leeyahay in uu jeclaado dalkiisa dhisto qurux badnaysiisto amaanto hadii aad adiga amaan weyd cid ku amaanaysa malaha Soomaali oo dhan adduunka meel walba ay kaga nool yihiin Ilaahay waxaan uga baryayaa guul عزي iyo sharaf inay ku noolaadaan oo ay noqdaan dad dadka ka dhax muuqdo dadka ka qiimo badan dadka ka sharaf badan dadkana ka sareeya insha Allah taala marna la milicsan doonana waa gaari doona idina aamin dhaha waxaana soo nagu soo foolay bil Ramadaan waxaan rajeynayaa ducada in aad ku kabi doontaan in ay Soomaalida meel walba ay joogaan عزي iyo sharaf ay ku noolaadaan aad iyo aad baad u mahadsantiin reer siriicaad fikirkiina waa xur waana idin soo dhaweynayaa wixii aad ka dhihi lahaydeen fanaaniintan showga qabsan rabto inta fiidiyoga mid la mid ah ku kulmi doonana waxaan rajeynayaa is arag dambe oo xiiso leh